يا سيما محمود أنتيسا قرب فيدا أنتيسا باسيتلا. magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu qabtay siyaarada Sheekhi weynaa ee Sheekh Aadan Dheere iyadoona uu soo qaban qaabiyay Sheekh Axmed Shuqul Sheekh Aadan Dheere. siyaarada sheekha waxaa ka soo qayb galay culamaa udiin, professoro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii. siyaarada sheekha ayaa waxa ay ku bilaabatay quraan akhris iyo dhikri. نور البصري الله عليه سلام نور البصر جدوا وتنالوا من الوبري فلك الحمد يا ذا القدر هو فلك الحمد يا ذا القدر. ugu horeyn waxaa siyaarada ka hadlay qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb galay iyagoona sharaxaad ka bixiyay taariikhdii Sheekh Aadan Dheere. oo ahaa sheekh ku canbaxay diinta fidinteeda, dariiqada jacaylkeeda, xusuuda rasuulka, islaamka oo loo kaalmeeyay u gargaaridda islaamka, ama dibi ha noqoto ama ha noqoto daryeel ama ha noqoto quudin. sheekh ku canbaxay ayuu ahaa oo diinta ku sifoobay sida ilaahay la jeclaa. anigu magacayga yahay Anas Sheekh Muumin Shacali Muumin. waxaan rabaa insha Allah taala maanta anoo ka shaqeynayno siyaaradeeni sheekheeni weliga mukarramka ah abidka ilaahay adduunkiisa ahaa Sheekh Aadan Sheekh Umar siyaaradiisa ayaa maanta la iskugu wada yimid. saadarteed Sheekh Aadan Sheekh Umar waa sheekh weyn oo culimada Soomaaliya lafdhabarta u ah khaasatan al-sunna wal jamaa culimada waaweyn ku jira. sheekha wuxuu ahaa sheekh masaakiinta quudiya, sheekh cilmiga faafiya, sheekh dariiqada nashriya ayuu ahaa. ugu dambeyntii Sheekh Axmed Shuqul Sheekh Aadan Dheere ayaa ugu mahadceliyay culimadii iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay siyaarada Sheekh Aadan Dheere ee lagu qabtay magaalada Nairobi. anigoo Axmed Sheekh Aadan Dheere waxaan halkan uga mahadcelinayaa awalan Allah subhanahu wa ta'ala noo suura galiyay inaan isaga caabudno si xaq ah anagoo u raacayna wadadii rasuulkuna tusay alayhi salaatu wasalaam. taasi waa mahad guud oo Allah uu leeyahay islaamnimada iyo hanuunka anuga mahadcelinayno. talabaad waxaa mahad leh mujtamacan diiniga ah ee ilaahay dartiis isugu yimaadeen. waxay ka dhabeeyeen isu jeclaada ilaahay dartiis, isugu tagay ilaahay dartiis, isu kaalmay ilaahay dartiis way ka dhabeeyeen. waxaan isugu nimid ganacsi isuguma imaan, qabiil isuguma imaan, siyaasad isuguma imaan, nin waliba meeluu ka soo toosay. waxaan u soo kala hanay saakay oon ilaa xalaq qarkeen u soo jeeday inaan ilaahay weynayno, rasuulkiisa weynayno, saalixiinta weynayno, u ducayno, annagu isu ducayno dalkay dadka ummaddan u ducayno iyo diinka. ilaahay naga aqbalo. waxaa mahadsan qof kasta oo xoog iyo xoolo iyo si walba u geliyey wixii aan isugu nimid oo ah ilaahay dartiisa. sheekheennii iyo mashaayikhdiisii iyo dhammaan asaga wixii ku tacalluqay diin iyo maxaa la yidhaahdaa iyo dadnimo iyo kulli Allah ka tawaabiyo ee dhimatay inta noolna Allah ku dhowro. shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.